maanta ninkan calafkaada soo kala dhamaaday kulay ninka iskama ahaanayo doob oo wiligiis iska soo mataagnaanayo guriga iska dhax fadhinayo naag kale u raasanaya saadiga nin kale u raasatay nin walbana u wad buu raasanaya naag walbana u wad beerata السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا أصحاب تقاليقة مال والله بدون دافع ذاك الوقتان وحايد الله يهي مالي وناكسن هدي هبين كوتاين هبين وناكسن وقت والله بقى كوتاي أو وناكسن وحرجني إنه فيديو كان ساعة مالك وجوسو كاري أوات ولبنا قد بنسو ساعة ماله ولكن ما هو أركيتو كذا بنسينا وإسلام هو أركو في شرطة تامر كي كوجو رسول بقى تكنا كنا حكيم من سبسكرايب تا صاد ومن نقطة سحب قالها كان رجوعي سيدو كذا كمان فيديو جينا لايك تا وحكي لي أكو دري مكرنا إن أتكلم فيديو دينا weliba noo noqon karo dhiirigelin anagana video kan ka badan aan dabka u soo saarno dabka aan u soo qaadno ku soo dhawaada videogeena maanta saad ku soo aragteen title-ka mise sawirka kore ee thumbnail-ka ba waxaan rabnaa inaan ka hadalno arin social media saacadii ugu dambeeyay haysatay taasoo aad macnaha wax looga xumaada ahayd videogaas oo ahay in gabar kale ay ku dileysay nin ay macnaha kala tageen ay shukaasatay awgeed weliba kala dilitaanka kala xume ay ku dileysay dhagax حتى يهود حتى اسكو ما سميسو ما اقان markee waxa ay ka waday iyo waxyaabihii ku kalifay kulay wararka aan maqalnay iyo sheekooyinka aan maqleeno ayaa waxay ahaayeen horta qisadaas aad ku xumeed in ay ka dhacday Nairobi ma aqaan Soomaalida Nairobi mar walba waxa ay iyaga isku gumaadaan iyaga waliba joogo dal shisheeye marka waxay ka mid tahay waxyaabo aad lagu xumaado arinka aad ku falxun ayaa horta waxa ka sii xun in ay ka dambeeyeen horta gabdhaha Soomaaliyeed ma aqaan gabdhaha Soomaaliyeed waxa mar walbo ay isku dilaan waliba iyagoo mar walbo nagu eedeeyo in ragga Soomaaliyeed ay yihiin wax aad macnaha looga faano mar walba isku day inay naga faanaan balse hadana mar ka kala keenaysa hadana in ay dartooda raggii Soomaaliyeed ay gabar walaasheeda oo Soomaaliyeed ay u disho nin awgees kaasoo ay xataa mid ay kala tageen sheekada ayaa waxay dhigaysaa in gabadha dilaysa gabadha kale ninka bil ka hor mise maalmo ka hor ay kala tageen mar walba waxa la horta dab waxa daari kara gabdho iyaga la dimi karo gabdhaha fiidiyoga duubay mise meesha la jooga gabdhahaas baa la sheegay in ay labadan gabdhood isku direen waliba sida isku direen ay ahayd maadaama ay kala tageen ninka iyo gabadha wax dilayso ay ku dhaheen gabadha la dilaayo baa ninkaaga kugu dirtay saas awgeed ay hadirtan u shukaansanaysaa maadaama qofka labada qof markay kala tagaan nin walbo alifkiisa meel kale u karaasado laakiin gabdhaha ba sida ay sheegeen macnaha waxay isku direen labada gabdhood ay dhaheen gabadhaada siiba gabadha wax dilaysa baa lagu yiri ninkaaga gabadhan ayaa kugu dirtay taasoo keentay gabadhii in cugdad ay caloosha ka dareento iyadana gabdha kale kuwa wax duway ee soo wadato gabadha ugu horeen horta inta videoga lagu duubin ka hor kulay hal gabar saan uma gal lahayn waa iska dhici lahayd balse videoga saad ka arkaysin gabadha baa duway videoga oo gadaal dama ka yara hadlaayo gabdhahaas baa la sheegaya in marka hore gabadha ay soo jilciyeen ay soo dileen kadib gabadhan hadda dhagaxa ku timayso markii gabadha la soo jilciyay ay intee korka uga fadhiisatay waliba dhagax ku timayso gabadha iyadoo bariitamayso leh walaal madaxa dhagaxa igu dhufan iyo waxyaabo la mid ah hadal aad looga xumaada marka ma aqaan waxyaabay ku kalifay kulli waxaas leeyahay meesha ay joogaan dawladdu way ka jirtaa inkastoo maasuqna iska jiro laakiin way dhacaysaa in gabadhaas maxkamadda la soo taago waayo waxyaabaha ay sameeyso waa waxyaabo xushnimo oo ka baxsan bini'aadanimada taasoo kale macnaha macquul ma inay ku sii dhaxnoolaato waxyaabo biri ka daran way sameey kartaa macnaha ani ahaanteeda ma aha in iyada ay ka raxsanayo laakiin waxyaabaha noocaas oo kale ay sameeyso ma aha waxyaabo bini'aadanimada lagu sii dhaxnoolaa karo birina waxay sameey kartaa wax ka daran haddaynan jirin dawlad soo qabato mise haddaynan jirin dad iska dhiciyo kulay ilmaha gabadhaas in ay saas ugu hari doonto mar haday ka soo caamaato jugti iyo waxyaabo loo geystay iyadana waxyaabo la mid ah ku sameey doonto waayo xaq ay u leedahay waxyaabo lagu sameeyay ee gabdhihii iskugu tagay ee ku goobtay in waxyaabo ka daran hadii sharciga laga qawaayo way u qalantaa in waxyaabo ka daran ay sameeyso markii mid aan leeyahay waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed mar walba ma aqaan waxa ay laba gabdhood iskaga hor keenan iskugu diraan ma xumeey hadii isku diilahaayeen oo ayadooda kala qaadanay waxba ahaaleed laakiin hal gabar 5 naag iyo 6 naag iskugu tagaan macnaha ma dawlad shan dawlad ku duuleysmiya mid kalena horta waa mid aad qalad weyn u ah in gabdhihii Soomaaliyeed isku dilaan nin awgiisa nin waa la heli karaa intaas oo milyan
intaasoo bilyan weliba xataa milyan iska daayo oo nin baa caalamka ku kala nool meel walba ay joogaan haddii maanta ninkan calafkaada soo kala dhamaaday kule ninka iskama ahaanayo doob oo weligiis iska soo mataagnaanayo guriga iska dhex fadhinayo dee naag kale u raadsanaya saa adiga nin kale u raadsatay nin walbana uwad buu raadsanayaa naag walbana uwad bay rataa uwadka saloo kala helna nin walba waa inuu naag raadsadaa naag walbana hadday kala tagaan nin inay raadsataa ma aha inuu asiga ku xayirnaado taasna micnaheedu ma hadaa ninkii kala tagteen in adiga naag kale ay shukaansan karin macnaha ninka adama dhalay waa maya adiga hadday lagu furo adiga nin kale waa guursan lahayd taas macnaha cid kuga haysta ma laha dee waxyaabaha furinka loo baneeyay dee waa waxyaabahaas oo kale haddaa isfahmi weysiin ninka kala taga dee diinta baa lagu sheegay hadii la ilaa ninka hadduu naag furo naag kale ma guursan karo naagta haddii nin furtana nin kale ma guursan karo macnaha diinta ay kusoo degi lahayd laakiin waxa loo yiri in loo kala taga ayaa waxay tahay haddii qofkan isfahmi weysaan dee qof kaloo kuu qalmo adduunyada ka raaso dee ninka haddaa kala tagteen ma aha in adiga oo kuu xayirnaado naag kalena oo shukaansan taasna macnaheed ma aha naagtii shukaansataba inta lagu soo diro ninka dartaa bee naagtaas ku kaa dirtay inta lagu dhaho hab aad ku digtay naagtii aad dishid ma aha marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa waliba qaar fiidooga markii la soo dhigo waa arka commentiyada badanaa waxa comment ku soo dhigto waxay gabdhaha Soomaaliyeed badanaa qalbiyadu iska fiican laakiin 5 iyo 4 kamid ah baa waxay u dhaqmaan sidii wuxuushti ma aha in aan gabdhaheena jecefinayo laakiin waxyaabaha arkeeno iyo waxyaabaha foolka xun ee sameynayaan gabdhaha qaarkood aniga ma haysto gabdhaha badankood laakiin qaarkood waxa aan haysto waxyaabaha la isku qaldan qaarkood marka aad fiirisid sida ay u dhaqmayaan ma aha hatta uma qalmaan inay ku sii dhaxnoolaadaan bil aadanka waa waxyaabaha aan aragno mar walba ay sameeyaan gabdhaha Soomaaliyeed in gabar walaashaada aad u dishin nin awgiis inaad u dishid waa wax aad looga xumaado marka waxa bahdilaad kugu filan ninku furay ee shalay meesha ugid kaaga tagay dartiis waa dartiis ninkii shalay ka tagay dartiis in maanta naag uu kala wala shukaasada aad u disho asiga awgiis taas baa bahdilaad kugu filan marka gabadha Soomaaliyeed ee saas loo galana aad baan uga xunnahay wixii ku hela waxay ahaayeen dee waxaan bil aad lagu tilmaami karin waxa igu darnaa kuwii kamerada ka duubay kulli waxay kamid ahaayeen kuwii gabadha marka horeba dirdilaad iyo dil isku geysto soo dilay bay kamid ahaayeen waxay la tahay wax ugu aaro iyo wax saas uu macnaha waxay sameeyeen wax lamid ah wax ku sameeyo كل وأرك دونتين صاد كبرنا أو كشانه إلا ما أه نروي أنا أوسي راح يسود دونتين معناه إلا ما أه أنا دتك أسكت رأيه لكن قف كهدو شرعي قبت أوه حار سمال أقوم مع هذا من عشان تهذا كاري من شرعي كاميرا يبو ولكن قبل أصلا يدوح يكون عنا أدي هذا وحنا كل فرق سمينه وحرجينا إن محكمة مثلا شرعي جلسوا تايد إنه سيد أول قصية بدنا هدو إلى هكذا النقطة قبل أصلا إنه حكوا رد الدار بلا قاركود بس كل جود فلالك وحنا وحنا نجي نحن عن وأديك واحد ندرت اسكت دلوا وأديك واحد هذا نمك كفى أنا وإسلا أديكي مركز سيدان واحد قدامه قبر Soomaaliyeed هذا ولا شيء نوديجينا من إن أدشين إن شاء الله مركز يدعن مركز أنا أكسو جينا فيديو جينا إن هدي وفيديو أكسو جارنه سيشر كده سي قبل Soomaaliyeed هذا هو فكرة إن أوجي قبل كلا أدلان أو سيجارو أيجنا أي أو دكتورنا دان تفيدو كلام ده أنا وعماد قبو يادكو عماد قبو دي بسكو صلاة ونينو وحنيك تجي سيداسيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.